labadan nin iyagoo miraayad iska wada ayaa wiilkan wuxuu ku dhufanayaa dhagax qabshalax miraayadii way jabtay haye maxaa xiga kan wuxuu qabtay cunugii uu garaacaya oo ujeedaa oo ku qaylinaya daawade channelka follow naga dhaha yaa lacag idin kama rabno bes follow le naga dhaha dad baana dhahay maxaa u tuugsataa tuugsiga ma aha haddaan aniga Soomaali tuugsanaya tuugsanaya waa ujeedaan cunugii waa la qabanaya waxa la miraayad maxaa u jibisay waa ujeedaan cunugii uu qaylinaya kii kalena gacanta ayaa xanuuntay waa ujeedaan gacantii ayaa xanuuntay maxaa yeelay miraayad ayuu ku haayay yaa kii kale ayaa dhahay maxaan sameynaa hadeertaan cunugii ayay ku qaylinayaan markay kii kale ayaa dhahay xalkeen waxaan way dhacday yaa miraayadan way jabtay adaa luuqan la soo marsiyay meel caruur dhagax ku tuuraan adaa la soo marsiyay maxaa xal ah yaa igo hadalkaas sheega ayaa waxa imaanaya nin wadada maraayo wuxuu dhahay akhyaari maxaa idinka qaldan miraayadan wadada ka aruuriya ma fiicna meeshan wada la maro cunugii fakatax cunug waa carar horta labadii iyo ninkii imaaday yaa isku mashquulsan kii wuxuu dhahayaa wadadan ka aruuriya qashinkan muxuu aasi wada la marayo waa iyaga waxay dhahayaan xal noo keenaya waxa loo waday miraayadan boqorka halkeen kii ayaa dhahaya anaa idin sheegaya boqorka haddii kala aruuriya hadirtaan haddii kala boqorka anaaba idin sheegaya aruuriya kana xanaaqaya anaga ma boqorka noo sheegay kuletigu ka qabanaya ku qaylinaya yaa wuxuu taagan yahay kan waa idin sheegaya hadda meeshan ka aruuri weysiin wax aan ka baqayo malaha miraayadan ka aruuriya meeshan yaa waa ujeedaan kii uu baryaya wuxuu dhahayaa nia noo sheegin nia xalkeen yaa haddii kale na dhaaf kii uu iska baxaya waa ujeedaan uu iska baxaya labadii ayaa meesha ku soo hartay waxay ka sheekeynayaan wixii xal ah xal in barnaamijkan loo keeno maxaa yeelay boqorkii yaa wuu qaylinaya yaa labadooda waxay taagan yihiin hadeertaan saan mi ahaa miraayadan aan qaadno guriga boqorka aan geyno yaa derbiga iska saarno kadib xal ayaa imaan doona way qaadeen miraayadii ayay qaadeen waa ujeedaan qolkii waxaa loo wadaa boqorka albaabkii ayuu galayaa uu dhudhuumanayaa wuxuu iska fiirinaya dad meesha jooga miraayadii uu qaadaya waa ujeedaan miraayadii uu qaadaya tartiib kadibna muxuu samayn doonaa miraayadii uu qaaday fiir ninkan waa clever wallahi billahi taala albaabkii u dhigay albaabkii uu saaray wuxuu ka dhigaybo miraayad darbiga ku dhagan oo kale kii kale uu fiirinaa waa yaabanyaa albaabkuu garaaca fiir gabadhan boqorka dhalay albaabka soo garaaca ay furi doontaan albaabkana gadaal waxa ku tirsan miraayad hadda ay furto miraayadaas waa jabe fiir ya miraayad qabshalax mar labaad ay jabtay waa isku naxayna fiir boqorkiina waa taagan yahay boqorka gabadhu ku qaylay war miraayadan hadda la leekeenay gabadhay maxaa ka qaldan maxaa u jibisay yaa aaba an ma jibinin dadkan miraayadan hore inay u jabsanada dhici karto aniga ma jibin iyagu weydinaa haye waxaan wax ma ka jira miraayadan ma jabsaneed waxay dhaayaan wax ka jira malaha miraayadan way fiicneed kii adaayo oo wadada ka qaada dhahay boqorka idin shaa waa taagan yahay waa wuxuu taagan yahay boqorow dadkan waa beentood miraayadan iga jibi iyago jabsanay keeneen yaa labadii uu ku qaylinaya wuxuu dhahayaa waa idin jeedaa waa ay qayaanteen miraayadii jabsana keenteen gabadheeda ku masabiteen yaa waa u jeedaan Soomaalidu waxay dhahan god khiyaana ha qodin haddaad qodaysana ha dheereen ku dhici doontida ma ogide dadkan godkay qodayeen oo khiyaanada ahaa iyaga had dalaq dhahay markay barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay god khiyaana ha qodin haddaad qodaysina ha yaa ha fogeen